lamaane maalinta arooskooda ku biiray dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Suudka iyo taashka arooska ku bedeshay tuutaha militariga, gacmaha ku qaatay hubka waxgumaada, iyagoon khibrad ciidan lahayn ayay iska xaadiriyeen safka dagaalka si la isaga caabiyo duulaanka Ruushku uu ku qaaday dalkooda hooyo. Lamaanahan oo jacayl nafla qaybsi leh uu ka dhaxeeyo, waxay kala doorteen nolol iyo geeri. Waxay tuureen ubixii carfoona, waxay qaateen qoriga AK-47, halka dhigoodu ay nafahooda ula baxsadeen dalalka Poland iyo Belarus. Lamaanaha reer Ukraine ayaa xubbiga xabadkooda fariistay xayndaab uga dhigay xabado baaruuda si ay xornimo ugu noolaadaan carruurtoodu mustaqbalka dambe. Gabar 22 jir ah, Yarina Ariv, iyo saygeeda Svetoslav Farzin oo 24 jir ah, ayaa arooskooda laga tumay Michelis Garden oo ku taal caasimadda Kiev. Bisha malabka ayaana u bilaabatay habeenka. Xaalkoodu wuxuu ahaa dhiindhiin, balse waxay talo fara ka haaday markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay howlgal militari oo laga fuliyo dalka Ukraine. Subaxnimadii Khamiista, Ruushku wuxuu weerar ku ekeeyay magaalooyinka xuduudka bari ilaa iyo koonfur. Saacad ka hor waa berigii, iyadoo gantaalada gujiska iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu garaacay saldhigyada militariga Ukraine. Lamaanahan dagaalka u qori qaatay ayaa isbartay Oktoobar 2019, kolkaasoo mudaharaad uu ka socday bartamaha Kiev. Xiriir jacayl oo sii xoogaysanayay ayaa dhaxal siiyay inay toddobaadkan aqal galaan xilli dalkooda uu ku jiro marxalad hubanti la'aan ah. Waxay ku riyoonayeen inay arooskooda ugu dabaaldegaan makhaayadda mahrajaanka ee Levia Bag oo leh goobo si farshaxanimo ah loo naqshadeeyay, gaar ahaan aagga quruxda dabiiciga kulansatay ee webiga Dnieper. Laakiin riyada in la rumeeyaa waxay u baahan tahay halgan aan si fudud lagu xaqiijin karin. Svetoslav Farzin marna kuma uusan fekerin in dantu ay badi doonto qoriga gacanta loo geliyay ee AK-47-ka. Wuxuu shahaadada heerka koobaad ka qaatay cilmiga injineerinka oo uu ku gaaray inuu ka shaqeeyo shirkad software ku taal magaalada Kiev. Lamaanahan ayaa iska diiwaan geliyay ciidamada difaaca Ukraine kadib markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu ku dhawaaqay shacabka hubka qaadi kara inay ku biiraan xeryaha tababarka militariga si ay gaashaan ugu noqdaan dalka labaad ee ugu weyn qaaradda Yurub oo ah dalkooda Ukraine. Lamaanahan waxay si wadajir ah u sheegeen inay jecel yihiin dalkooda xor ah, ammaankiisana la isku halayn karo. Waxay tilmaameen inaan guurkoodu qiimo weyn ku fadhiin inta mustaqbalka dalkoodu uu mugdi ku jiro. Xaaladdu waa adag tahay, Ruushku wuxuu ka naxayo male, hub waaweyn ayuu soo ridayaa, magaalooyinkii quruxda badnaa waa dumiyey. Waxaan u dagaalami doonaa dhulkeena, waxaa laga yaabaa inaan dhimanno. Waxaan rabnay inaan wada joogno aniga iyo gacalyahaygu inta noloshayda ka hartay, ayay tiri Areva oo la hadlaysay telefishinka CNN. Waxaa loogu bishaaraynayaa dadka jecel barashada Quraanka Kariimka iyo culumta shareecada Islaamka in markaska Al-Irshad Islamic Online uu qaadanayo arday cusub. Waxaa lagu bari doonaa Quraanka Kariimka, luqadda Carabiga, tafsiirka Quraanka, axaadiista Nebiga iyo siirada Nebiga sallallahu alayhi wasallam. Waxaana kuugu diyaara mashaayikh diinta looga dambeeyo. Wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.